غرد يا شبل الإيمان، غرد يا شبل الإيمان، واصدح بالقرآن. غرد يا شبل الإيمان، واصدح بالقرآن. فيه الحق وفيه النور وفيه اللؤلؤ والمرجان، فيه الحق وفيه النور وفيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان، واصدح بالقرآن. أتل السطر وراء السطر، فالقرآن ربيع العمر، والقرآن شفاء الصدر، فيه الرحمة والغفران. أتل السطر وراء السطر، فالقرآن ربيع العمر، والقرآن شفاء الصدر، فيه الرحمة والغفران. فيه الرحمة والغفران. غرد يا شبل الإيمان، واصدح بالقرآن. غرد يا شبل الإيمان، واصدح بالقرآن. أبدا لا يعلوه كتاب، أبدا لا يجفوه صواب، أنزله رب وهاب، رب تواب رحمن. أبدا لا يعلوه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إخوتي في العقيدة، ورمضان waxaan filayaa waa waqti malaa dadku daalay, laakiin waxaan isku dayayaa inaan kalimaad kooban insha allahu tacaala dariskan ku soo koobo. dariskan waxaynu kaga hadlaynaa ataaqaat almuhadara, awoodaha allayna siiyey subxaanahu wa tacaala ee aynu dayacnay ama se aynan adeegsanin. إلهي سبحانه وتعالى قرآنك وحكو تلمامي وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إلهي وحو النمعاء إذن كوكا الله ضيستي وحو برارية سردية برواقع إذن سيي. هذا الترسان بقال لي سبحانه وتعالى مكو بك رسان نمعوين قال له سبحانه وتعالى معها واحترال وكو بك ريو. لكن وحي سويدين تلي وحويان انتينو نمعوين كاسي كفا إذي سنة أما سيأديك سنة. dhan kastoo laga eegaba nolosha waxaad moodaa inaynan halkii loo baahnaa gaadhin ama se aynan ku qanacsanayn. maalan waa ramadaan, dadku inta badan qur'aan akhris iyo cibaado iyo salaad iyo tasbiixaad iyo duca ayuu ku jira. markaynu milicsannay in yar taariikhdii dadkii muslimiinta ee hore, waxaad moodaysaa inaynu akhriyayno dad kowkab kale ku noolaa, dhul kale dad ku noolaayo kanaynu inagu deganayaan deganayn. markaad aragta awoodooda, juhdiga, tamartay bixinayeen, waxay yaqaaneen, waxay qaybsanaayeen, marka lagu yidhaahdo waa caalim muslim oo fulaana. maanta waxaan ku dhuftay kutub الrijaal ama taraajumka ayaan xafid alqur'aan ku qoray, dabeetana waan galaa. waxaan eegay bal culimmadii muslimiinta ee hore ee la yaqaanay ama la garanaya uun waxay qur'aan hayeen. maan arag nin caalimo iga soo horbaxa ilaa iyo qur'aan iyo intaasoo kitaaboo kalu qaybsanyay qur'aan qura. innagu keenna qur'aanka qayba ayaa maa shaa allahu taagantay. kaasaynu ma jiirannaa farta ku tilmaamna waxaa la yidhaahdaa intaasoo xaafid baan leenahay, ma hebel waa xaafid. laakiin markaynu salafkeenna akhrino taariikhdooda iyo taraajimtooda, waxaad moodaa dad kowkab kale ama dhul kale deganaa inaynu arkayno. oo kaanama marka lagu yidhahdo waa bukhaari, intaasoo 100,000 oo xadiid buu qaybsanaa, waa imaamu axmed oo 1 milyan oo xadiid buu hayay, waa awsaaciyo intaasoo 100,000 oo xadiid. nin walba marka lagu yidhahdo 100,000 oo xadiid oo maca sanadkiisa wata iyo wuxuu dhan baan kitaabba ku qorrayna uu korka ka watay. bal ay subac u fadhiisan jireen sidaynu quraanka subaca ugu fadhiisanaabay xadiidka subaca ugu fadhiisan jireen.
dabeetana inta nin caalimi nin kale u yimaada buu ku dol akhriyi jiray wuxuu maxfuudaadkiisoo dhan intuu ku dol akhriyo ayaa la isla sixi jiray oo la kala eegi jiray innaga maxaa taaqadan iyo awooddeenii xaggay ka baxda dariskan markaa maanta aan isku dayaya inaan akhriyaa waxa weeyaan waxaan rabaa mindaarka ama maxaa la yidhahaa mikriska waxaan nolosha waxaynu ku eegayno inaynu change garayno muraayadaynu xidhanay aad u qallafsan muraayadaha qallafsani waxay suurto gelin kari waayeen inaynu noloshii xaqiiqada ahayd aragno taasaa waxay keentay markaasi in taaqaadkeen iyo awooddeen iyo dhamme ay cadilanto oo waxba aynu garan kari weyno taasaa waxay keentay in maalinniba maalin inoo dhiibto shaqo walo aynu qaban karnaba aynu isranno berri sanadka dambe markaad soo firaaqowdo bal hadhow baad wakhti u daydayi doontaa noloshana mar la firaaqoobaaba ma jiro waxaan rabaa markaasi maanta cilmi idinku kordhin maayo laakiin silsiladaan idinka jebinaya yacni waxaan rumaysnay in silsilada inagu xidhan yihiin awooddii iyo taaqadii allayna siiyey subxaana wa tacaala in silsilada inagu xidhan yihiin waayo shayga nolosha ay u baahan tahay maalmaalma ka mid ah waxaan galay netka dabeetana waxaan galay labadan website ee xufaadulwaxyeynka laba website oo qur-aanka iyo axaadiista lagu qaybo kadib baa waxaan arkuun iclaan yaroo meel ka laalaada oo sheegaya ma rabtaa qur-aanka inaad 30 maalmood ku qaybto markaasaan sidhi waa qariib war mala 30 maalmood qur-aankii aad taqaanay 30 malaa laguma qaybo 30kii maalmood meesha ku qorayd baan galay waa risaale ama kitaab nin qoray oo 63 page 63 page runtii haddaad akhrido noloshaada wax badan baa iska bedelaya waxa uu xisaabiya uu tilmaamaya uu leeyahay wax kasta oo nolosha hadaf kasta aynu u baahanay inaynu xaqiijinaa laba shay oo qudhu u baahan yahay buu leeyahay midi waa alhimma walcaziima walmusaabara midi waa han sare oo go'aan adag wata hanku waa qofku inuu han weynaado haddaad han yar tahay waxa weeyaan waa cigaal shidaadkii lalahaa maxay col hortii jabayay col hortii baad jabaysaa haddaad han yar tahay macnaheedu waxa weeyaan adoo waxbaba isku dayin ayaad jabaysaa laakiin qofku markuu han weyn yahay oo uu casiimana leeyahay go'aan adagna uu leeyahay kaasi waa qodobka koowaad ee nolosha wax ka bedeli kara qodobka labaad ee nolosha wax ka bedeli kara waa almaqdira awood iyo istitaaca inay jirto awood inay jirto awoodina way kaa buuxdaayo waa lagu tusi waaye Soomaalidu waxay yiraahdaan geela baa aakhira xooggiisa la tusaabay yiraahdeen adduunka ilmo yar baa neefka geela weyn hogaamiya marka aakhirun buu xooggiisa arkaabay yiraahdaan waxaan ka baqayaa inteena badani inaynu ku dhacno aakhira inaynu aragno awood iyo nimcad iyo xoog Ilaahay siiyay subxaanahu wa ta'ala in adduunka arkari weyni ka saddexaadna wuxuu ku tilmaamayaa inay tahay in la helo as-suhba as-saaliha al-mushajji'a in la helo dad fiican oo aad gargaarsato oo raacdid oo aan muthbitiin ahayn aan dad dhulka kugu nabaya ahayn dad kor ku qaadayo kor ku sii wadaya waxa laga yaabaa wali inaa u haysataan iclaankii aan tilmaamaya ahaa qur-aanka 30 maalmood saad ugu qaybaysaa inay mas'alo riyaa tahay waxa uu sameeyay camaliye xisaaba xisaabtu waa waxyaabaha ugu concretesan ee bini'aadamka lagu qanciyo camaliye xisaaba buu sameeyay wuxuu ku tilmaamay bejka qur'aana imsaad ku qaybi kartaa bej qur'aana aan xisaabta xaga kale ka soo maro jiska qur'aana imsaad ku akhridaa ninka gaabiya nus saac ku akhriya ragga carabka fududina rubuc saac meelaha si gaarsiin kara mutawassidkuna 20 ilaa 25 ay ku akhriya haddaan idhaahdo jiska nus saacaad ku akhrida jiska qur'aani waa imisa page markaynu qaadano tabcadatan Uthman Taha uu qoray يعني مصحف كان إنه آخرنا نبى قعنتي سكو قري مطبعة دي وحماها نبى قعنتي سكو قري عثمان طه كتاب كان هو قري وحوس ما يسيء قابة شنية طبعا صدر بيت كستابين وككوبين هي
aayad inuu ka bilaabmo aayadna uu ku dhammaado jis waliba 20 beyj inuu yahay marka laga reebo jiska koowaad ee faatixada iyo intan la qurxiyay kaasi waa 20 beyj marka laga tago isna jiska ugu dambeeya ee jis caama ah oo isagana suuradaha calaamadahan u dhaxeeya lagu tiro badiyay isna 23 beyj ama quraanka caadiga wuxuu ku qoray maxay 20 beyj jis kastaaba sadaradeed musxafkaasi wuxuu ka kooban yahay 604 beyj haddaynu idhaahna 20 beyj ayaad gaabisaayo nus saac ku akhridaa nus saac beyjkii misaad ku akhriday marka 20 daqiiqadood qaybi waa daqiiqadiya badh saxanka ma beyjka waxaad akhrii kartaa daqiiqadiya badh qofka gaabiye 30 daqiiqadood jiska ku akhriya beyjkii wuxuu akhrii karaa maxay daqiiqad iyo badh buu ku akhrii karaa sadar imsaad ku xifdii kartaa markaad imsa jeer ku celiso hal sadar مثلا قل هو الله مصحف كاسي waa laba sadar قل هو الله النسكي imisa goor markaad akhridaabad qaybaysa يعني مصحف ka markaan eegno قل هو الله النسكي وقل هو الله احد الله الصمد لم يلد انت صدر الا لم يلد imisa ku qaybaysa markaad imisa goor akhrido mar laba saddex afar shan lix toddoba siddeed imisa ku qayb karaysa haddii aan idhaahdo maalan 5 jeer baad ku qaybi kartaa haddaan idhaahdo sadarkaa markaad akhrido 15 sadar imsaad ku akhriyaysaa marka yacni sadarkiiba waxaad ku akhriyaysaa minute iyo badh soo maaha beyjkii minute iyo badh baad ku akhriyaysaa minute iyo badh haddaad ku akhriyaysay beyjkaa 20 jeer inaad akhridaa maxay keensanaysaa waa nuso saaci beyjka 20 jeer inaad akhridaa waa maxay waa nuso saaci wuxuu leeyahay camaliyada xisaabiga ninkani sadarka haddaan ku idhaahdo buu yidhi 5 jeer akhri oo si fiican u akhri 3 jeerna muxaawale 8 jeer baad ku qaybi kartaa haddaan idhaahdo buu leeyahay macnaheedu wax weeyaan 12 daqiiqadood baa beyjka lagu qaybaa laakiin waa 12 daqiiqadood oo tarkiis leedahay bay yidhaahdaan waa 12 daqiiqadood oo aanad meel la u jeesanin idan haddaad beyjkii 12 daqiiqadood ku qaybi karto waa ninkii gaabinayaan weli la socdaa inamada dheeraynaya lama socdo beyjka haddaad 12 daqiiqadood ku qaybi karto haddii maalintii aan ku idhaahdo 5 nus saac akhri qur-aanka 5 salaadood salaad walba nus saac akhri waa imisa waa 4 saacadood iyo badh 4 saacadood iyo badh 12 daqiiqo haddii lagu dhufto 60 loo qaybiyo waa imisa waa 5 beyj dad min saacad kasta 5 beyj baad qaybi kartaa haddaad 5 intaa ku dhufato waa 22 beyj iyo badh macnaheedu waxa weeyaan 4 saac iyo badh waxaad ku qaybi kartaa markaad nidaamka 12 daqiiqo raacayso 22 beyj labada beyj iyo badhka tuur 20 beyj waa hal juz nidaamkiisa uu xisaabiyay haddaad sidan ku socoto waxaad ku qaybaysaa waxa weeyaan 27 maalmood taa macnaheedu waxa weeyaan taqriiban 30 maalmood uu sheegay uu ku qaybi karaa waxa laga yaabaa inaad tiraahdo mustaxiil waxana iska xisaabaad aad sheegtay sheekhay practicalka laguma hayo practicalka haddii asbaab la helo waa wax suurtagal ah waxa laga yaabaa markaan inta badan tajaaribta akhridaan in kuwii salafka aragtaan oo dabeetana la yaabtaan imaam zuhri quraanka markuu baranayay 8 casho ku qaybay yani sida bale hisham al-kalbi waxa la yiraahdaa 3 casho ku soo qaybay waxay ku sheegaan rag badan marka taraajumtooda akhrido intan bay ku qaybeen intan laakiin raggaas waa raggii hore waxa odhanaysan iyagu khaariq ay ahaayeen dadaan khaariq ah inaan hadda jooga haddaba tilmaamo ilaahay horta wuxuu ina leeyahay wa fi anfusikum afala tubsiruun وعلم آدم الأسماء كلها آدم مقع عردن با إلهي بري سبحانه وتعالى آدم عقل جيسو وحو قادي وح عجز قليي ملائكته آدم عقل جيسو وحو قادي محي سا قرآن كنت الماميو وح عجز قليي ملائكته با آدم عقل جيسو قادي سيكلا هدانو تلمامو وحنا دلهي هدي أينو اسكر ابنه
afkaartan laynagu akhriyaa waxba lama qaybi karo waxba lama akhri karo waxba lama baran karo wax waa saab waa col hortiijabayay taasi haddii taa la reebo waxaan leenahay wax badan oo fududaanaya baa jira bal aan bacdi tajaarib ay soo naqliyaan tilmaamo gabadh haweena ayaa waxay tiri waxay igu qaadatay ali cimraan iyo albaqra inaan qaybaa 7 sannadood kadib ayaa bil ramadaan 15keedii baa ninkaygii wuxuu yidhi bay tiri waan ictikaaf tegayaa waxaan qabanayaa baytullaahi alxaraamka 4 carruurana waan haystaa bay tiri waan warwaray marka meel aan reerkaygu deganayna waan deganay dabeetana maxaad qaban doontaa 15 cashe ramadaankii odaygii maqanyay ayaan isweydiiyey bay leedahay anigoo aad u mahmuuma bay tiri aad u wareersan baan internetka galay waxaan helay bay tiri website-kan akademiya xufaad alwaxyayn waa sheekh cali rabiic sheekh cali ibn saciid alrabiici website-kiisa waa website dadka qur-aanka qayba ay galaan ayaan galay bay tiri dabeetana sheekha website-kiisii markaan eegeegay ayaan waxaan arkay bay leedahay qola meesha ku qoratay 3 casho ayaan baqariya al-cimraan ku qaybna anna 7 sannadood bay igu soo qaadatay bay tiri al-baqara iyo al-cimraan inaan qaybo waxaan arkay bay tiri dumar le 3 maalmood baan ku qaybnay al-baqara iyo al-cimraan dabeetana waxaan sidii buu yiri maad bal qoladan waxa wax ka bedelay maadna gashi website-kan register gareeyay bay tiri waxaan rabaa inaan member ka noqdo dabeetana waxay gashay dowraad uu bixiyay sheekhu oo la yiraahdo dowraad tagyiir al-aqli buu bixiyay dowraadkiis dowraadka maan bedelka ayay gashay kadib ayaan bilaabay bay tiri munabbah baan saacad yar baan halkan dhigtay bal inaan page-ka 10 daqiiqo 12 iyo waxaan la sheegay inaan ku qaybi karo waan tijaabiyay bay tiri 10 daqiiqadood baan page-kii koowaad ku qayba dabeetana maalintii koowaad baan fadhiistay bay tiri subaxii ayaan fadhiistay goor barqa ah ilaa iyo 2:00 duhurnimo in yar baan jiifsay kadib aan casar fadhiistay ilaa cishihii maalintii koowaad baan istijaabiyay 3 jis baan qaybay bay leedahay waa hal maalina ayaan istijaabiyay bay tiri 3 jis baan qaybay 6 maalmood markaan marayay bay tiri 16 jis baan qaybsanaa 6 maalmood markaan marayay 16 jis baan qaybsanaa waxaan gaadhsiiyay bay tiri inaan 8 daqiiqadood page-ka ku qaybo waan ka badiyo markii dambe 5 daqiiqadood uma page kasta ku qaybi jiray gabadha tan mala caqligeena ka weynaa aan hore isaga dhaaf mucaasim haweenay kale la yiraahdo iyadoo waxay leedahay anigu waxaan sameeyay mas'ala la yiraahdo al-i'tikaaf bil qur'aan baan sameeyay bay tiri 20 maalmood baan qur'aan ku qaybay wariba 20 maalmood baan qur'aan ku qaybay bay leedahay waliba bay leedahay maan ahayn qof dumar oo cid la joogtay 4 carruura iyo aabahood iyo guriga iyo reerkana waan maamulayo waan waday bay leedahay habeen kama maqray saasi daraadeed baa waxay sheeganaysaa ay leedahay dowraadka sheekhaasi bixiyay bay tiri علي الربيع علي بن سعيد دورات كيسا تغيير العقل كان دغيستي كدب مركان دغيستي ايام بلا بيت رمسه مالنتي هورتا 6 صفحات بان قيبي بيت وان ودايو markii dambe waxaan gaaray bay tiraan 12 صفحات qaybi karo maalmihii ugu dambeeyay waxaan gaaray bay tiraan 50 صفحات qaybo maalintan khatimayna 27 صفحات baan qayba 27 صفحات oo imis صفحadii hadaynu nijisku waa 20 صفحات imis noqonaya 3 jis iyo bad iyo dheeraad waliba 27 صفحات baan maalintii ugu dambeysay qayba bay leedahay laakiin imis ay ku fadhiday waxay leedahay 24 saacadood 8 ilaa 10 saacadood baan xifdi u fadhiyay 8 ilaa 10 saacadood ayaan xifdi u fadhiyay waxay ku tilmaamaysaa habeenkiina 2 saacadood baan seexan jiray maalintiina 2 saacadood iyo bad baan habeenkiina seexan jiray maalintiina snaap yarun baan qaadan jiray in yarun baan indhaa guduudsan jiray kadibna waan ka kici jiray waayo project bay sugayay bay leedahay inaan dhameeyo waxa laga yaabaa ina masaa'ilka kan ka yaabantihiin laakiin waxay yidhaahdaan haddii sababta la garta bay yidhaahdaan batala alcajab wax waliba markaad sababta garanay wax weyn buu kula yoodka dayrad cirka maraysa markaad aragto warbalada tan maxaa hayabaad isweydiin laakiin haddii lagu dhigdhigo say wax doolaan iyo saadoo waxa wariila waxan baa la isu geegeeyaa dadoo iska kacaan waa kula fududaanaysa yani qofka bini aadamkii marka uu sababta aqoonin wax waliba qariib bay leeyihiin wax adagoo weyn bay leeyihiin
laakiin haddii lagu sababeeyo lagu riisan gareeyo wax lagu sheego wuxu way fududaadaan ilaahay wuxuu ina siiyey subxaanahu wa tacaala maskaxdani aad bay u yartay jidhkeenna marka lagu miisaamo bay yidhaahdaan waa 2.5% wasniga jidhka waxay yidhaahdaan waa 1330 garaam meelahaas bay ku tilmaamaan isku celcelintu kiilo iyo waxoogaa yar weeyaan maskaxda kugu jirta haweenkana bay yidhaahdaan raggu 40 garaam buu ka weeyay yani isku celcelinayana 40 garaam bay ka miisaan yaryihiin maskaxdaasi waxay isticmaashaa baa la yidhaahdaa jidhku waxaad oxygen neefsato oo dhan dib u jiido rubuc ka mida keligeed baa cunta allaaliya waxaad oxygen cabto rubuc ka mida maskaxdaasaa cabta maskaxdaa waxaa ku jira balaayiin unugyo ah maskaxda inugu jirta waxay yidhaahdaan 22 decimeter decimeter kama taqaaneen centimeter maaha hoos uga sii kac decimeter 22 decimeter oo murabbac ah yani square ah 22 decimeter intuu leegiye somewhat meelahan buu leekaanaya waa wax aad u yar centimeter waa decimeter 22 decimeter oo square oo maskaxda bini aadamka ka mid bay yidhaahdaan waxa ay qaadi kartaa 20 milyan oo volume ama book inta ku qoran bay qaadi kartaa ma u malaynaysaa in awood intaa leegaad wadato waa 22 decimeter in ka mid oo maskaxda sidata ka midi waxa ay qaadi kartaa bay leeyihiin 20 milyan oo mujallad oo mutawasit alxajmiya waxay ku tilmaamaan maalan axad alculamaa waa professorka la yidhaha mark rosizan oo ka mid ah culamada maskaxda daraasaysa ee jaamacadda california sanawaad badan buu daraasaynayay kadib buu wuxuu leeyahay haddii buu yidhi maskaxda bini aadamka maalin kasta 10 macluumaad fi thaniya loo sheega buu leeyahay second kasta 10 shay haddii loo sheega buu leeyahay secondku waa ilbidhaqsi halka minute baa 60 second ah second kasta ama thaniye kasta oo ka mida nolosha qofka haddii loo sheega buu leeyahay 10 shay 10 macluumo loo sheego muddo 60 sanadooda lagu wado habeen iyo maalintoona aan la kala joojin waxaad qiyaastaa second kasta 10 baa lagu sheegayaa shay 60 sanadood baana lagugu wadayaa habeen iyo maalinbana waa lagugu akhrinayaa wuxuu leeyahay macluumaadkaasi maskaxda bini aadamka ma buuxinayaan 1 على مليون من حجم العقل buu leeyahay 1 على مليون من حجم العقل sida daraaddeed bay waxay ku tilmaamaan insaanku maskaxda ku jirta awoodda alla siiyey maba isticmaalo bay leeyihiin 10% mooyaane boqolkiiba 10 ayuu ka isticmaalaa bay leeyihiin waxa lagu tilmaamaa qoladan computersku waxay ku xisaabtamaan gigahertz inuu processorku inta uu gigahertz uu per second jari karo waxay yidhaahdaan maskaxda bini aadamku 400 مليون عملية حساب في الدقيقة سمين كرتها waxay ku tilmaamaan maskaxda bini aadamku 30 بليون معلومة أي في الثانية معالجة ku samayn kartaa يعني كمبيوتر dunida yaala saan uma qabto waxa lagu tilmaamaa maskaxda bini aadamka iyo xidhiidhada unugyadaadu leeyihiin 600 mayl cable iyo wire-ka la dhigi karo ayaa u dhaxeeya bay leeyihiin iyada xidhiidhadeeda daakiraduna waxay ku xidhantahay bay leeyihiin inta xidhiidh ay samayso waxay ku tilmaamaan axad ulculamaa baa wuxuu leeyahay haddii buu yidhi dunida waxa tv iyo telefisyon iyo raadaar iyo telegraf iyo telecommunication waxa wax lagu xidhiidhiyo dunida yaalla haddii inta la yareeyo buu yidhi caqliga bini aadamka oo kale loo ekaysiiyo waxaasoo dhan waxa iskaga badan buu leeyahay bini aadamka maskaxdiisa yacni all telephone dunida yaalla wax allaaliya waxa switch dunida yaallo la isku daro maskaxda adiga ku saaran intay process gareyn kartaa ka badan sida daraaddeed ayuu axad alculamaa waxa uu ku tilmaamaya haddaynu isticmaali lahayn buu yidhi xaasuub ama computer maskaxda uun bal ku dhodhow haddaynu isnaana sameeya waxaa dhici lahayd buu yidhi inaynu samayno guri 10 dabaq ka kooban oo 770 mitir square ku yaalla buu leeyahay
يعني بني آدم كيبلدي سوي حسادوس كحد على كمبيوتر استراتو بس كحدا يرى أديك إلهي كوجر ركبي شقة يقبضه وح قابن كرائن للسماية وح قادن الله يدبولي حجمه تضواب بقول إيه تضوابات متر سكوير أو طبعا طبق كور لورد سي حجم حاسوب لك بولي برمجة سي مثال السماين كرابو ملي تاي الربا يعني برنامج كل شقين لها أنت لو السماين كرايا الربا waxa meesha yaalla wuxuu yahay taaqada inugu jirta inta ay leeg tahay iyo waxaynu ku isticmaalnaa aad u kala yar idan inagu waxaynu shaqo ka dhiganay taaqada inta leeg ama awoodda inta leeg inaynu caatilo oo aanay waxba qabanin wax qabasho la'aantu waa maxay qofka bini aadamka gacantaada mesela haddaad halkaa dhigto gacantaadu dhaqdhaqaaq bay ku shaqaysaa haddaad halkaa dhigto 10 daqiiqo haddaad ku hayso marka dambe way ku daalaysaa wallahi war gacantiba way kaboobiyootay haddii lagu yidhaa saacad ku hay inaad qaadiba kari weydaaba laga yaabaayo hadhow ku damqato waayo shaqadaad tirtay cudwi kastoo bini aadam ka mid oo la shaqo tira waa nooca kan cudwiga haddii la shaqo tiro howlgab baa ku dhaca howlgabku suu ugu dhacaya maalan مثال بسيط أنا بسياني يقول عاي بربراني يقول كسرانية قاعد فوشة من القلبي كعم بانك شباب دبتنا بهالله يريار الله فها قاعد تكوشرايا براي ميت كم إذا شفتي الله يركبه الله هلك الله يحري شان يفرطان عشان مركي كحد نيت بالله يغفري جبوت الله يغفري دبتنا وحلي دوله وكوشبانت دي بهدنا الله يركبه يربان لتجي تضباط المعلومات مركي يقول ركب نيت بالله فري dabeetana waxay dhahaan wali way ku jabanta ma laftii yaray wali ma rakibmin laakiin gacantaydii ba halka dhaafi weyday waa 90 degrees waa sidii loo xidhay ee bahashan cad loo igu xidhay ayay gacantiina joogtaa gacantiina halkaas ay joogtaa dabeetana waxay igu yiraahdeen lafta yara jabtay iska ilaa imka khatar kala ku haysatee gacantan sidaynu kala bixin lahayn baynu tijaabinayna lafta iska jabnaato waxba la ima qabtee physiotherapy baa la diray halka dhudhunka iyo muruqa sare cududa la igu dhaga waa la iga cabaadiyaa saddex cashaan imaada xoog baa la qabtaa waa la iga cabaadiyaa marka qayliya cabaar baa la sii daaya waskaga tagaa sidii ay maalinba in yar u kala baxayso maalinta dambe gacmaha isku dheerari labadeeda gacmood way sileegeen ma kala gaabna tii lafti kalena waaba iska bogsatay intii tan laga cabaadinay maxaanu jeedaa يعني waxaan uga jeedaa gacantii bini aadamkee shaqada taqaanay sida tan ahayd aan waxba qabin hadii la xidho way hawl gabtaa hadii la xidho sida laga dhigo way hawl gabtaa mushkiladda ina haysataa waxay tahay taaqadii allayna siiyay awoodeeni ayaynu xidhnaa markaas waxa la inaga dhaadhiciyo la inoo sheegay inaan waxba la qaybi karin wax qaybku inuu adag yahay in buuga wax lagu qortaa inay fiican tahay computerka iyo waxaan la isticmaalay inay fiican tahay maskaxdu waa ku damqanaysa dabeetana xad baynu gaadhnay safxadii aan idin lahaa aan qaybno haddaad akhridabada madaxu ku xanuuno ood wareerto qaadiba kari weydo laakiin waxaad u baahan tahay in yar lagu tadriibiyo in yar gacantayda inta la kala furo kale inuu kala furo baad u baahantay jirka bini aadamka ahi waa sida loo train gareeyo waa sida loo tababaro in badan baynu tusaalayaal waxaan ku bixinay kuwan wax cayaara waxaad aragteen kuwan wax cayaara nin waliba halku cayaara buu weeyay waayo uu train gareeyay kuwa feerka cayaara qaarkan sare waa weeyeen mijuhu waa wax dhuudhuuban sababtoo waxa weeyaan qaarkan sare loo train gareeyaa kuwa kubadda cayaara mijaha waa weynaada qaarka sare waa wax dhuudhuuban shaarka marka iska bixiya waa feedha yar yar laakiin cagu waa weeyeen waa loo train gareeyay يعني قفك بني آدم كان ماشي لا كوبعيا كوبعضة هداد مسكحداد تجابسه إن دو حقيبي كرتو وحفظي كرتو وحبران كرتو ووحاد وفضط بخاري هدي اللي قال لها مسكحين تيدا اللي يقوم كوشرتي كما بدنين كوا كلا عصر جينا دافي قرن جينا دافي ساينسيهن كي دوني دوغو ينايا يدهدان وساينسيهن كي صومرا قرن جي لباتنات وألبرت أينشتاين waa يهودي جرمال asalkiisu ahaa yahuudina yahudi jarmal markii dambana Mareykan noqday waa cilmiga physics-ka nimankii ku takhasusay waa ninkii aragtidiisa ay ka soo burqatay nuclear weaponkan la sheegay iyo fikradahan TV-yadan iyo waxan iyo waxa soo dhamay nadariyad physics uu leeyahay bay ka soo burqadeen
waxay yidhaahdaan waa caqligii ugu weynaaba iyagu markay wax qiimaysanayaan caqliga dee intoodunba yaqaaniine waxay yidhahdaan markay intoodii isku dardareen waa caqligii ugu weynaa ee qarnigii 20aad dunida soo mara bay yidhahdeen sida daraaddeed bay waxay yidhahdeen ninkan yaynan aasine bal aan eegna maskaxdiisa waxa ku jira Einstein markuu dhintay baa la qala iyadoo la rabo bal in la ogaado meesha tan waxaan ninkan ku jira iyo غayru caadiga ah waxay yidhaahdeen Einstein maxaa loogu tagaad u malaynaysa qof bini aadama caqligii baa loogu tagay bay yidhaahdeen wax ka badan oo ku jiray maskaxdii Einstein lagama soo helin laakiin muxuu ku gadisnaa waxay yidhaahdeen wuxuu rumaysnaa inuu ka shaqaysiiyo oo adeegsado idan Bukhari wuxuu rumaysnaa inuu maskaxdiisu ay u tahay maktabad imaam Ahmed wuxuu rumaysnaa wuxuu xifdiyay inay maktabadiisa yihiin أبو زرع وحو الرميسنا مكتبدي سوحو قيبين ايتاي شافعي ساسو الرميسنا أئمدي هو رساسو ننكو علمي سلابتي سكسيتي كمانكم ككتابة إنو شيغي إنو إمام الطبري بارددي سوحو لي يعني دين يريد تفسير قرطة همدا يراتي بو يردايمك وحبا سد المجلدات بو يريد تفسير سد المجلدات بو يريد وحانو لي همدا يراتي ما يرانتم بالغو بلابا مايا بعض العلماء وحي قرين كتاب لا يداهدو من حفظ القرآن بعد 40 بن قري أفرتنشير رقي دافيا قرآن كغيبي ومحاد قرآن شيغيسا أزهر أئمة دين كمدها كنت يا فرتشير بوكو بلابي وحقرسته وإمام الأكبر للأزهر لكن كنت يا فرسو مقالة يسجد شوقي مركو أفريا كنت نشير مريي أيودي نيوماد وحبرتي دورته وقت بدن بابا كارلو مايه وبلابا أزهر بو سو قال دبتنا waa soo waday waa soo takharujay imaam al-azhar isagoo ah buu dhintay 90 jir daadiisu rabarayso 94 sanado meelahaas filay inuu ku dhintay 90 magalaha laakiin wuxuu dhintay isagoo imaam azhar yani wuxuu aaminsanaa awoodiyo taaqada ku jirta inay wax kasta qaban karto ayuu aaminsanaa idan waxa mushkilada meesha taalaabay leenahay ma aha waxa mushkilada meesha taala waxay tahay koow inagoo jahli inaga sugayay nafteena ilaahayna ina leeyahay subhanahu wa ta'ala wa fi anfusikum afala tubsirun wa fi anfusikum afala tubsirun ilaahi subhanahu wa ta'ala inoo sheegayo le wa 'allama aadama al-asmaa'a kullaha aadam waxa magac jiro oo dhan baa la baray waxa la baray aqoon malaa'iga ay ka caajistay oo sameyn kari weyday هذا آدم إن كيسو ما ضنته مالك لك ما دمان آدم كايل هيلي سبحانه وتعالى أسماء أردن بالله بري إن كيسي باتي تامعني هدو حويا أنا ندو حكست بس بين كرتو بس هذا مركب ماشى تعالى وحويا جهل إنه نفتنا جاهل كنا هي أي وحي كانت يناد أركي ويدو حوق قال لك سي سبحانه وتعالى يا أود هاي سطو سيد الدراديد أي واحد عضي إن أد وحبا قيب كري ويدو أما إن أد وحبرن كري ويدو أما إن أد حافظ نقن كري ويدو نبي محمد عليه الصلاة والسلام حين ليه المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان نبي عليه الصلاة والسلام وحط المام يا مؤمن كحوجا إمام النووي وحلي حوجا لشيء وقوة نفسية بولي مؤمن كحوجا باك خير بدن بو النبي يقول مؤمن كضعيف كا لا بد بنا خير باكو جرو دي إيمان باكو جره نبي حين لا يحرص على ما ينفعك احرص أو احرص لا بد ولا شيء كد دال بالليل وحكو أنفعيه نبي محمد عليه الصلاة والسلام عين كاسبين ليه وحاوين ليه نبي عليه الصلاة والسلام واستعن بالله ولا تعجز ولا تعجز ولا تعجز لا بد ولا شيء إلهي كالميس سبحانه وتعالى يمرنا بها عجسين عجسiga ugu weyni waa adigoo awooddaada arki waaya ina aadamkii walaalkii dilay waa kii awoodiisii ba arki waayay dabeetana walaalkii untuurta iskaga sitay ee ilaahay subhanahu wa ta'ala u soo diray maxay quraab tuka waxbara
dabeetana wuxuu yidhi acajastu an akuuna mila hada alghuraaba fawaariya sawata akhi war ma waxaan ka caajisay ma waxaan ka hoos maray tukaha kan xoogga wuu qabaye jahligaa hayay xooggiisii wuu qabaye tukahani in cilmigii ku kordhiyey jahligaa hayay tukahani silsiladii ku xidhnayd buu ka furay oo silsiladaan raba inaynu galabta iska furro yacni qof bini aadam oo ilaahay subxaana wa tacaala uu abuuray oon wax qaybi karini ma jiro bal waxaan tilmaamaynaa leenahay nebigu calayhi salaatu wasalaam ducooyinkiisa saxiixaynka ku yaalla bale ay abwaabta u samaysteen baabu tacawudi min aljubni baabu kada ay abwaabta u samaysteen waxaa ka mid ah saxiixaynka iyo kayrkiiba ku soo arooray ducada nebiga inay ka mid ahayd nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu ilaahay ka magan galo allahuma innii acuudu bika min alcajsi walkasal bale waxay ka mid tahay awraadda yowmiga laga rabo qof kastoo muslimi inuu akhriyo subax kasta markaad soo toosto waxaad tidhaahdaa baa lagu leeyahy ilaahu waxaan kaa magan galay cajsigu waa cadam alqudra iyo kasliguna waa wixii aad awooddo ka wahsato ilaahu awood darran kaa magan galay iyo wahsi iyo tabardarro waxayn tilmaamaynaa leenahay mushkiladdeenna waxay tahay hankeennaa yaraaday sidaa awgeed ay waxaynu ku qanacnay in hoose laba mid qaarkeen waxaabay ku qanceen qur-aankana inaan la qaybi karin kow qoladeenna qur-aanka qaybtayna waxa laga yaabaa inay bes halkaa ku qanceen halkaa haddii la gaadhay halkii u sarraysay in la joogo laakiin waxaan leenahay muslimka maanta jooga iyo muslimkii hore waa isla bini aadam bal innagaa ka fursad badan markay furaska tahay furaska bukhaari wuxuu lugaynayay intuu bukhaare ka soo lugeeyey ilaa masar ilaa ciraaq ilaa shaam ilaa iyo xijaas ayuu maalinba dhan u socday cimrigiisii lug buu ku dhammeeyey siduu u waday isagoo ururinayay laakiin adiga waxaa laga yaabaa kili kombyuutarku aad taabataa inay kaa xigto ama kitaabaad maktabadda ka qaadataa inay kaa xigto wuxuu bukhaari intaa la lugaynayay furaskii adigaa haysta laakiin waxa yaallaa waxa weeyaan hankaagaa yar hankaynu niyaddaynu hayno iyo hanka aynu hayno iyo waxa aynu isleenahay xaqiiji baa yar marka horeba meel fog baanad kaba fakaraynin qofka bini aadamkana hadduu hankiisu yarya waxba maaha casriga kan musaabaqaad baa la qabtaa sunanka ka mida riyaad saalixiin baa musaabaqa loo qabtay inan muslimadoo masriyadii 2 maalmood bay ku qaybtay atacjabuun waa riyaad saalixiinka waa 2 kun oo xadiis maalinba kununba iska tuurta 2 kun oo xadiis 2 maalmood bay ku qaybtay muna saciid gabadhan la yidhaahdee macruufka waa gabadh xifdiga ku macruufa buluuq ilmaraam 7 saacadood bay ku qaybtay buluuq ilmaraam ma soo ma taqaaniin kitaabka dhigatana buluuq ilmaraamka la yidhaahdo 7 saacadood bay ku qaybatay muna saciid waxay qaybsantahay ilaahay kitaabkiisa saxiixaynka bale waxay qaybsantahay al-ummahaat al-14 waa haweeney 14 kitaab ee sunanka ugu waaweyn bay korka ka haysa dadka hadda nool الشيخ محمد حسن ولا الدودو شنقيط يا شيخ غنا وشيخ كنت تشرقاري مكو أفرتك داف 40 فنا بحفظ سني وحلقة يا مكتبة هذا أنت كتاب تعلي أنت قلبك يسقو شراين وكيسة وبطه وأنا قف بني آدم أنا أفرتك بقاري أما يمكن أفرتك كطلابية وهن وحكني علماء الشناقطة شنقيط مركز تكتو قف أن وحو يقان قيب سنين بما تشوقه shanaaqidadu ma bini aadam ka gaara bini aadamka kala maya waa niman afrikaana oo inoo eeg oo reer miyiga oo geela haysta iyo inta aynu haysanno oo nolosha intaynu kaga noolayn ka sii liidataba kaga nool laakiin waa wada xifdisan yihiin nin kastoo sheekh lagu sheegaa ninkuba maxamed xasan wala dudagaba wuxuu leeyahay 40 fanni ninkan wax ka aqoon de sheekh lama yiraahdo buu yiri 40 fanni ninkan wax ka aqoon qofku wuxuu yaqaan uu qaybsan yahay waa wax fudud wax weyn ma inaan Soomaaliyeed oo Ingiriiska jooga Ingiriisku ka yimi meelahan muslimiintu yimi subaxii buu yiri markaan salaad subax ka baxaan fadhiistaa ilaa 7 dhowr bilood buu ku qaybay quraanka dabeetana wuxuu ku xigsiiyay Alfiyat ibn Malik in yar buu ku qaybay wuxuu ku xigsiiyay Alfiyat Suyuti in yar buu ku qaybay
wuxuu ku xigsiiyey shaatibiyada in yarbu wuxuu soo qaada buu iska qaybay sheekh iminka urduniya oo khaliijka culamada ka sheekhaa ka midi ingiriisku ka yimi raggii rabshada badnaayee meelaha ingiriiska joogay buu ahaa dabeetana waa iskaga yimi meelahan buu yimi urdun 2 sano meelahaasuu masaajid isku xidhay hadda waxaad aragtaba uu qaybsan yahay kitaabka aad istiraado balkan sheeg isagu korku ka haya waad u bilaabaysaa kitaabku akhrinaya ma aha bashar caadiya dadka kane yani dadka ka gadisan maaha hawshaad haysaabuu hayaan shaqadaad qabataabay qabtaan saddex dumaray qabaan aabbayiin caruur bay u shaqeeyaan waxaad wadaabay qabtaan laakiin xaggee wax iska weydaarsan yihiin waxaan leenahay waxa wax iska weydaarsan yihiin labadan shay baa u baahan inaynu fahmno inaynu han yeelanno caaliyil himma inaad noqoto qofka caaliyil himma waxa lagu yaqaanaa inuu caziimo leeyahay inaanu xamaas wixiisu ahayn laba cashiya maalintaad xamaasadooto inaad dabeetana laba cashina iswereeriso hadhownaad xagga daba kitaab ka tuurta maya inuu noqdo qof caziimo leh faidaa cazamta fatawakkal cala allahi buu ilaah yidhi markaad go'aansataan ilaahay subxaana wa tacaala tala saarta qofka caaliyul himmiga waxaa lagu yaqaanaa waxa hoose kuma qanco waa ku imaam ibnu aljawsi lahaa haddii buu yidhi nebinimada la odhan lahaa farsamaa lagu helayaa iyo barasho inaad wax nebinimo ka yar raadisaa waa kuu doqoniimo buu leeyahy yacni meel nin maray inaad adigu ka hoos martaa waa kuu doqoniimo waad mari kartaa weeyaan waxaynu u baahannahay caaliyul himma waa qof raba shaqada uu qabanaya inuu xoog ku qabto yaa yaxya khudi alkitaaba biquwa baa ilaah yidhi yaxya kitaabka xoog ku qaado awood isticmaal waxaa ilaahay subxaana wa tacaala inoo tilmaamayaa ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا نكدداله إذا أنت سو آخرتها إلهي سبحانه وتعالى وأوغا مهد عليا وحلين قفك عالي الهمة قاهي وقف وقتك بخيل كواه ويا لبيه طبعا من هدي بيت قرآن لغو قيبة يمس ساعدات بكالوما محاد لبيه طبعا كان كاغا دغاي وحوين waxay yidhaahdaan culamaa'i nafs insaanku bay yidhaahdaan atacwiid waxa la yidhahdo isticmaalaha wixii loo baahnaa markuu qaban kari waaye bay yidhahdeen meel kaloo isku mashquuliyaa si uu meel kale uga muuqan karo sheekada iyo maxaa la yidhi daynu isku mashquulinay dabeetana xaggaasaynu ka wada muuqan masalada meesha taalla waxa weye waxay yidhahdaan caqliga bini aadamku waa 2 qaybood qayb waxaa la yidhaahdaa alcaqli alwaaci قيبنا waxay ku sheegaan al-aql al-batin aw al-shu'uri al-aql al-wa'i waxay ku tilmaamaan waa aqliga soo jeeda waa aqliga taxliiliya waxan xawaasto ay aragto isha iyo dhegta iyo maqalka iyo dareenka iyo waxa kan ka warama fakara wax sheega aqlina waxa la yiraahdaa waa aql al-batinka aql al-batinku waxay yiraahdaan waa xajmi aad u weyn isagu عقل الواعي قلنا وحير بيدهدان لكن وحير به قامية بيدها عقل الواعي مركا وحودك ما بيدهدان وناخذها دون توضا دون وين بوضا لكن سقوا ناخذير عقل الباطن كه وحل قليا ملومان وحتسوي باهنت هنا تكدر دعسه شيء مركو عقل الباطن عقل الواعي كسر وكم فكرة تالية ورمية وركا شيغا لكن انت تسوي جيدنا وسوي جيدا مركا تردنا يسنا وسيحدا ومغي عقل الباطن كو يساقو ما سيحدا هبين يمالي بو سوي جيدا وحي اللو دي مروا إلاليا عقل الباطن كوحا وحلوغو ديبا كعلعلين إيا كدادعين التصديق والتكرار باوغو بدن بين هذا إن لفهم سيو لغا دادعيو لغونا علعليو isagu bay yiraahdeen wuxuu gacanta ku dhigo wuxuu ka dhigaa tabiica iyo sajiya iyo caada iyo suluk buu badala yani dhaqan buu badala mesela waxa lagu sheegay xadiis nabi kaleey salaatu wasalaam oo ah in midigta wax lagu cabo wax lagu cuno wax lagu qaato soo kama xadiiskaas aynu haynaa maalinta koowaad xadiiska lagu sheegay sheekhu kitaabka dhigaya adag fadhiday waad fahamtay xadiiskii hadhow markaad maqaaxida tagtaan shaad dalbataan mad bidix iska yar qaadonka soo sheekhu yiri ka daayo midigta ku cab waad iska dhigto midigta ku qaad waan ilaaway baad tiri sheekh midigta iska cabti
saddex afar shanta casho hore marna bidixdaad ku yara qabanaysaa marna midigto markaad dhexda marinaysa umaad xasuusanaysaa adagaysaa mastoonaysa war shaydaan baa nala cabay midigtaad ku qaadanaysa laakiin markaad muddo wado automatic bay isu bedeshaa koob baa la soo dhigayaa midigtu baad ku qaadan weligaa bidixda ku qaban maysid waad ka barata waayo waxay dhahdaan caqli albaatinka ay degtay uma baahnid inaad fikirto tiraahdo ma bidixdan ku qaadaa ma midigtan ku fikrad lagaama rabo inaad tiraahdo bidixda iyo midigta teebaa go'aan ku qaadanayaaye waad iska fiiqaysaa qoladan waxbaadha waxay dhahdaan maalan askari haddaad doonaysa bay dhahdaan inaad garato waa la joojiyaa dhaqaaqa dheh bidixdu ka dhaqaaqaya waayo iyadaa lagu tireengareeyey askarigu markuu istaago bidixdaabaa dee socodku ka bilaabmi jiray haddii aad askari taagto is idhaahdo socod bilow bidixduunbuu dhaqaajinaya halka qof kale laga yaaba mar inuu midigta qaado mar bidix kolba tii u fududaata inuu qaado idan caqli lbaatinku bay dhahaan waa waxa loo dhiibo waxa loo dhiibaana in lagu celceliyaa unbay ku xidhantay faatixada miyaa gaftaan faatixada goormaad akhridaa adigoo aan soo jeedin baad akhridaa salaadaad xidhataa allahu akbar sidaad u wadwaday unbaa maskaxdu iska tagtaa faatixada wala daalintumaad miirowdaa soo ma jirto yaa akhrinaya ilaa adigu waad maqnayde yacni caqli lwaaci baa maqnaa caqligii soo jeeday ayaa maqnaa laakiin caqli lbaatin baad u dhiibtay mar haddaad caqlulbaatinka u dhiibtay ma dayacanto waa iska wadaya isagu wala daali intaad ku miirowday uun markuu marinayay waxa la mida xifdigu markaa marna waa xifdi iska sariic oo intan yara saruun intaad dulka xaadisay caqli lwaacigaa haya oo safxadaad ka fakeraysaa oo aayaddii ku xigtaad baadi doonaysaa oo kelmadaad eegaysaa oo maskaxdu waxbay xisaabinaysaa intaa weli caqli lwaacigii baa xifdigaagu ku jira laakiin haddaad daafiso ka kale u dhiibto uma baahna inaad ka fakertee sidaa faatixada loo akhriyo ayaad u akhrinaysaa idan waxaan leenahay waxaynu u baahannahay inaan wakhtigeenna ka faa'iidayno oo isku dayno inaad wakhtiga ka faa'iidaysato aad noqoto qof wax qaban karaya waxaynu u baahannay inaynu ilaahay barino tala saarino gabadhaan ilaa 16 jis bay qaybtay waxay tidhi marka aan dareeriyaba maalin qaybaba waa sujuudaa una sujuudaan ilaahay ku baryaa ilaahu intaan aadaan kuu dhiibay ma ilaaba bay tidhi intaan ilaahay u dhiibaba waa qayba un bay leedo markaa dhammeeyo ma idhahdaa ilaahu aadaan kuu dhiibay nabiguna wuxuu ina leeyahay calayhi salaatu wasalaam acjasu nnaasi man cajasa can idducaa dadka waxa u caajisaysan ka ilaahay baryadiisa ka caajisa dadkaasaa ugu caajisaysan buu nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam idan waxaynu u baahanay wax kastoo aynu qabanayno inaynu ilaahay subxaana wa tacaala u tala saaranno waxaynu u baahanay maalan cilmiga barashadiisu waa tarkiiska bay yidhahdaan caqligu marka wax qaybayo waxay yidhahdaan 10 daqiiqadood oo tarkiisa ayaa 10 saacadood oo aad kolba derbi daawanayso ka fiican ولذلك bay yidhahdaan ardayga xaafidka wax qaybaya waa inuu qaybaa meeluu caqliga tarkiisin karo oo aanu wax mashquuliya arki karin oo saa daraaddeed culimadu waxay yidhahdaan inta ugu badan la qaybis waxa ugu fiican suxuurta iyo wixii ka dambeeyay ilaa salaada subax ilaa intaasi waayo waqtigaa bay yidhahdaan jawiguna waa haadi dawdaa iyo qayliya buuqtoona maqlimaysid calooshuna bay yidhahdeen ma buuxdo calooshu hadday buuxdayana waa inkaar waayadaa dhiiggaba inta badan cabto ood mashquulaysaa laakiin markan bay leeyihin jidhkuna wuu fudud yahay calooshuna ma buuxdo dhiigga inta ugu badan le maskaxdaa qaadanaysaa qofkuna wuu tarkiisin karaa bay idhahdaan idan waa waqti alxifdi bay ku tilmaami jireen culammadii hore inuu yahay wakhtiga ugu fiican ee uu qofku wax xifdii karo waxaad kaloo u baahan tahay imaam xasan albasri baa wuxuu lahaa war nafta buu yidhi haddaanad xaqa ku mashquulin baatilkay kugu mashquulinaysaa nolosha ma jiro waqti firaaqa la yihi iminka bishan horta waan shaqaynayaa bishaad shaqaynaysana qayb waayo noloshu waqti firaaqa aba ma leh mar kasta hawl nooca unbaa ku haysataa saa daraaddeed buu wuxuu leeyahay imaam xasan albasri war naftan haddaanad iyada xaqa ku mashquulin buu leeyahay iyadaa baatilka kugu mashquulinaysaa adigu shuqulba waayi maysid adigu shuqul waayi maysid mar haddaanad shuqul waayin adigu shuqulka xadee shuqulka aad rabto inaad qabato ha noqdo mid adiga kaa soo fulo ahmiyad kuu kale leh oo priorities kuu kala fog waxaad kaloo u baahantahay albii'a almuthabita inaad ka tagto dadkan dadka cagsi geliya waxba lama qaban karo waxba nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu jeclaa tafaa'ulku waa maxay waa inuu qofku khayrka had iyo goor sheego wanaagga in waxa la qaban karo culamaa'i nafsi waxay yidhaahdaan الرسائل الإيجابية والرسائل السلبية waxay yidhahdaan risalaadka
iijaabiga positive-ka wanaagsan iyo wargeysyada ama dhambaallada negative-ka ama xun maalan bay yidhaahdaan ilmaha yare qur-aanka aad u dhigaysa haddaad tidhahda habi iyo waxba garan maysid ximaar weeyaan kani eraygaasi wuxuu ka dhigi karaa bay leeyihiin ximaar culamaai nafs waayo waxay leeyihin haddii lagu celceliyo caqlulbaatinku galaa bay yidhahdeen caqlulbaatinka waxa galaana hore uma soo noqdaan saa daraaddeed wuxuu ku qancayaa bay leeyihin inuu fashiliyey oo aanu waxba qaban karin waxa ka roon bay yidhaahdeen tafaa'ulka iyo kalimaatu tashjiica waad fiicantay inaad tidhaahdo inaad adigu yaro samayso tidhaahdo maantaana tarkiisine si wanaagsan baad u qaybay waa ku aqaana hebel waad qaybi kartaa 5 minute halkaa u bax intaasaa ugu filan bay leeyihin inuu qaybo walidaalika xataa waxay yidhaahdaan markay culamaa kuwan psychologiga markay ka warramayaan wax haddaad rabta bay waxa laga yaabaa nafteenna inaan wali baran wax haddaad rabta bay dhahdeen nafta inaad ka dhaadhicsa intaad cidla fadhiisata bay yidhaahdaan u sheeg adigu naftaada kor ugu dhawaaq bay yidhaahdaan ma arrintaa ka warran waxay leeyihin intaad cidla fadhiisata waxaad tidhaha qur-aanka waan qaybi karaa 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 waxay leeyihin waa risaala loo diraya bay leeyihin caqliga aamusnaa xataa bay yidhaahdaan sida negative-ka ah u isticmaalin bay yidhahdaan waayo tadambuu qabtaa bay yidhaahdeen maalan negative-a ku isticmaalin yacni ma awoodi karo inaan ma ihi faashil ha odhanin bay yidhahdaan faashil ku qabanayaa bay yidhahdaan waxaad tidhahdaa naajix baanay waan guulaysanaya daadhe bay yidhahdaan waayo waxay dhahaan caqliga bini aadamku haddii lagu yidhahdo maalan iminka bay yidhaahdeen faras madow ha ka fakerin maskaxdaadu marka ugu horraysa waa faraska madow bay qabanaysaa bay yidhahdeen diimkaan ku yidhaha faras madow ha ka fakerin faraska madow bay maskaxdaadu markiiba u tallaabaysaa laadii hore bay yidhaahdaan waa negligible ma ku xisaabtanto sida daraaddeed waxay culammadu yidhaahdaan التفاؤل والكلمات الطيبة قفكو إنه استعماله وياه نفط إنا دوش نلش الصعوبات في هذا وذلك كرتا مشكلة باكاهر من كرتا وحاسي لكن وحلو بهينة كدل بودو وحلو بهينة طاقات كي كوكو كيت سناينا ديبو أديكستو وحلو بهينة سديبين نلش سديب كاو قليتا وحلو بهينة مركاينة تنهضا وان قابن كرا وان قابن كرا وان قابن كرا وقايب كرا وقايب كرا وقايب كرا سيدا وقيت nafta inaad adgu mashquulisaa baa loo baahayay waxay yidhaahdaan bii'ada markaa qofka cajsi gelinaysa inaad ka guurtaaba ku fiicanta la saaxiib had iyo goor mid kaa qaybis badan iyo kaa sii horbooda oo kusii hor socda ninku wada walidaalika baa waxay yidhahdaan jawharadu bay yidhahdaan haddii jawhara meel nijaasa ay ku dhacdo shay thamiini oo aad tiraahda taahiri biyo badan haddii lagu shubo aakhirka way taahiraysaa laakiin waxa ka fudud bay yidhahdaan intaad ka qaado aad maydho in yaroo biyo nuskoo baa nadiifinaya maydhaya laakiin halkii uska guyaalay haddaad biyo ugu darto waa taa macnaheedu waxa la mida bay yidhaahdaan dadka musbitiintii hadday kugu xeermaan un dad le waxba lama qaban karun haddaad la noolaato adna waad caajisaysaa marka dambe waxaad isku daydaa bay leeyihiin dadka duulaya inaad la duusho dadka wax qabanaya inaad la qaban karto walidaalika ikhwatii fi lcaqiida waxaynu u baahanay waxa weeyaan oo lagama maarmaan oo qofka muslimka ay tahay inuu adeegsado kow inaad niyada hagaajisato oo ikhlaasi niya ilaahay subxaanahu wa tacaala wixii dartii loo qabtaa sugmay inaad niyada hagaajisataan laba waxaad u baahantahay inaad naftaada dareentid oo fahamtid oo garatid haddaynu leenahay 60 sannadood haddii second kasta 10 shay lagu sheegayo hal loo qaybiyey milyuun awooddii maskaxdaada ka mid a baa la isticmaalay bay tilmaamayaan adna waxaad odhanaysaa waan gaboobay ama waan weynaaday ama waxba ma qaybi karo waa dafiraad aad ilaahay nimcadiisii dafirayso waa gacantaydii xidhantay un aanad ku dayin inaad kala bixiso يعني waxaad u baahan tahay inaad kala bixiso aqligaaga inaad soo celiso waxaad u baahan tahay taaqada alla ku siiyay subhanahu wa ta'ala inaad ka mahad celiso inaad ka mahad naqdid oo dib aad u adeegsatid waxaad u baahan tahay markaa inaad ilowdo cabashada iyo ma awoodo iyo cawaamisha nafta dib u dhigtay iyo waxa soo dhan inaad ilowdo aad mundafic noqoto aad hore u socoto waxaan leenahay waxaad u baahannahay al-awaamil al-mu'athara al-kharijiyya waxa nafta dhiirigeliya مثلا haddii la wadaado halka 4 saacadood istaag waa adagta 4 saacadood saabu taagnaa karaysa
ciqaab bay noqonaysaa xubin waliba oo ku damqanaysa laakiin haddii la yidhaahdo hargeysa maanta ninkii 4 saacadood taagraada $10 buu leeyahay cid dhici lahayd inaad arki jirta ma malaynaysa lama arkeen waayo $10 baa muuqda $10,000 haddii la sheego 4 saacadood oo qudhoos la sara taagnaado dhabar iyo meel ku xanuunta baad isgeejinaysaa dan noloshu waa caynka waa laga yaabaa markaynu leenahay waxbaro caraaqil baa jiraysa ka hor imanayso laakiin waa inay jiraan mu'atharaad khaarijiyo iyana ku dhiiri gelinaya dee mu'athirka weyn baad garanaysaa jannatin carduha asamaawaatu walard uciddat lilmuttaqiin hadday kuu muuqato janno cirkan iyo dhulkan baleeg iyo waxaan oo dhan ka weyn inaad helayso 4 iyo 10 iyo 20 batee taagnow 10 iyo 5 iyo 10 ba u ictikaaf inaad quraan xifdido culamadan ku sheegay leeyahay waxaan baadhay man xafida alquraan baan ku dhuftayda kutubtay qaybsayin wad qariibsanaysa xafida alquraan kada kada dabeetana waxaan leenahay qof waliba wax buu qaybi karaa daa kasta joog cid aan la hadlaya maanta ma ha dhalinyaro way dhalinyaradu hadday soo bilaabayaan fursadii bay haystaan waa da'da roon ee isla waqtigiiba idin dhaafay war habeenidii kama tagin ninkaasi kontoriya 40 jirka ahaa 54 sano jiray baan leenahay sheekhu Lazar noqday idan aqligiina alla uu ku siiyayna waad haysataa waxaad kale u baahantahay waxa weeyaan waqtiga inaad ka faa'iideysato waxay yiraahdaan hajmatul waqt inaad adigu waqtigaaga weerar ku ahaato waanu ka dayacmin aad ilaaliso waxaad u baahantahay makaan munaasib inaad heshido aad wax ku qaybtay ama wax ku xifdidid waxaad u baahantahay bay yiraahdaan muntazim inaad noqoto qof nidaam raacaya inaad noqoto waxaad u baahantahay bay yiraahdaan takraarkaasi tirada badan leh inaad samayso waxa runtii aan sheegi karnaa ma se akhriyi karnaa wax badan waxaan ka warramayaana wax khayaal maaha xaj ka mid ah xajajka ayaan tegay axad alculamaa baan khaymadiisa ku soo booqannay niman dhalinyaro baa la joogo fataawida ka fatwoonayay markaasuu wuxuu yidhi nimanka kan waxaan ku tijaabinay inay sunanka qaybaan dabeetana markay qur-aankii qaybeen sunankiina way qaybeen iminkana musnadu imaamu axmed 40 kun oo xadiido imaamu axmed ay haddana wadaan buu yidhi iyana waa qaybayaan waa niman dhalinyaro iska caadiya waa nolol caadiya ku nool dee innaga waa laynaguba eegin waxa layna yidhi waxba lama baran karo waxa layna yidhi waxba lama qaybi karo waxa layna yidhi waxba lama noqon karo saa daraaddeed baynu waxba noqon weyne laakiin maanta waxaan idin leeyahay war waxbaa noqon kartaa bukhaari waa idinku jiraa ee waa la soo qaban laayahuun bukhaari kelmad baa soo saartay isagoo fadhiya jalsadii isxaaq ibnu rahwey axadu a'immati alxadiid shuyuukhdiisii ka mid ah isagoo jalsadiisa fadhiya ayuunbuu sheikhu maalintii wuxuu yidhi ma alla helo low mid idinka midi talow muu ururiya axaadiistii nebiga ka asaxday kelmadda unbaa bukhaari qub ku tidhi isagoo jalsada iska fadhiya ayuunbuu sheekhiisii wuxuu yidhi talow maa la helo nin idinka mid ah oo ururiya axaadiista saxiixa haadihi alkalima baa anfacday imaam albukhaari dabeetana wuxuu u xidhxidhay inuu kitaabka bukhaari qoro laakiin bukhaari inuu qoro juhdu ku bixiyay habeenkii 20 jeer buu kici jiray mararka qaarkood habeenkii 20 jeer ay mararka qaarkood faynuska shidan jiray imaam الذهبي imaam البرزالي muxadithaha imaam المزني ay rag muxadithiinta wada joogeena ayaa maalin arkay dahabiyo wax qoraya dahabi aad buu farfiicna dahabi wuxuu ku horeeyay cilmi القراءات iyo quraanka iyo xifdiga iyo xagaas ku horeeyay dabeetana imaam البرزالي un baa arkay isagoo wax qorayo markaasuu yidhi khadkaagu fiicana waa khadkii muxadithiinta kelmadda un baaba qub tiri baa la yidhi imaam الذهبي markaasuu u dhaqaaqay cilmi الحديث وذهبي ابن حجر وعبي بيا إلى وحفظه سيسي نين بايري ورفر في عانده فرتي أهل الحديث قال لي ضيون بالويري فرتي أهل الحديث كو يا شيء دبتنا يعني أرى با الله شيء إمام الذهبي دبتنا كان دقيقين النقضة إمام الذهبي درس كان ما أنت عن وضعي مركز وحان ربينا ندين شيء علماء ديني تكتي dad khawaariqul caada oo gaar oo qiino gaar oo meel gaar laga sameeyay inaan ahayn saynis yahanadii aqoon yahanada maanta jooga dunida la leeyahay cirkay wax u diran iyo halkan ka baxeena inaanay dad gaar ahayn laakiin waa dad ku qancay
in ilaahay awood uu siiyay ay ka faa'iideyn karaan waa dad ku qancay inay samayn karaan wax oo awoodi karaan nalkana arkaysaan ninkii bilaabay Watson 99 jeer markuu ka bixiyay markunaadkiiba u baxa tasmacuun laambad buu rabay inuu shido cilmigii bariga bilowga ahaa ee waday waa wadaa waa bixi weydaawo waa ku soo noqdaa waa wadaa 1000 marra buu ku shiday bay yiraahdeen markunaadkii buu ifiyay tawaynaga wali ifisanayna laambada dunida nin baa gami waayay inuu ay la noqotay inaanu ka gamayn bahashana baxda mooyaane dabeetana markuu gami waayay un bay aakhirkii laambadii baxday dunidoo dhamina waa taa wada laambada noqotay kelmadaan rabaa maanta waxay tahay programmingkii hore ayaa formatting la idinkaga sameynaya taarifoon luqada computer waa taqaaniin baan u malaynaya shayga marka dib loo masaxayo waa la format gareeyay bay yiraahdaan waxaan rabaa in maskaxdiina dib u format gareysaan ka format gareysaan ajzigan iyo wahniga kan iyo waxba lama qaban karo taa meel inaga dhiga waayo dadkii horena waan idinka sheegay kuwa maanta joogana tusaalahan ku badiyay inaan idinka siiyo qaar 20 casho ku qaybay iyo qaar 30 ku qaybay iyo qaar Bukhari iyo Saxiixayn ka qaybay war haddadan مثلا لبدن إن شيء نكمل ده دكتور يحيى الغوثي ما يا دكتور يحيى اليحيى حفاظ الوحيين كويب سايت كلا يراني كله دكتور يحيى اليحيى أحد العلماء مدينة جمال رجيني يحيى اليحيى وحلي برنامج سنن كلا قيبسية دتي قرآنك ما تقارنين أنت لقو قيبسية قرآنك الدورة دي سؤال لحدا ما الموضوع لقو قيبة بس labada bilood ee ardada iskuulada ka fasaxatahay ayaa la isliiskareeya ardabu la iskareeya xarameynku keena labada bilood ayaa quraanka lagu qayba waa dawra li hifd alquran lixdan casha meel la fadhiya shaqo kale la qabanin laga rabixin cunada un la cunaa loo i'tikaafsay in quraankaas un la akhriyo la kala dhageysto lixdan ka casha ku qayba sunan ku dadka qaybsiya نظام قارو اسكاليه وراعه اولا بخاري هي صحيح مسلم كو انت اسكو وافقين مصو ururiyay كتاب قارو قري كتاب كسار دد لو ديبا متفق الشيخان با لا قيبسيا كدب اي ardayga waxa la qaybsiya man farada bihi al-imam al-bukhari oo gaara wixii imam al-bukhari oo dheer yahay waxa la isku ittifaqsay kadib ayuu qaybsiya wixii imaam muslim uu munfarid leeyahay ee aan ku jirin bukhari inta markuu qaybsiyo alfaad ay muxtalif u yimaal qaybsiya kadib wuxuu raaciya sunan kala soo qaada abi daawud wixii aan bukhari iyo muslim ku jirin ee uu gaarka leeyun baa lagu dulbinaya intaas la qayba tirmidi wixii aan saddexdii kitaab hore ku jirin ee uu gaarka leeyun baa lagu dulbinaya rag uu soo saara sunanka qaybsan idan waxaan idin leeyahay شبابك حفاظ يا قرآن كهية يجا وحن لا يبلو باتين هذا قرآن كهيسان كصعدة حديث كقيبة علوم الآلة قيبة كتاب دم بينك وآخرين يا الله ينارك كتاب كآخر أنت كقيبة بس أئمة المسلمين الدمان تدعي كاسيها كتب تود اللاب تود كوسيتين إمام الشافعي قبل يسمعوك شيء هاكيلو هذا علمه waxa qartaas ku qoran ma habuudo waxa qalbigaaga ku sidato Ghazali baa leeyahay bari kutub soo rartay isagoo wata tuugi heshay markaas ay dhacdo rasuul war kitaabadu iga taga cimrigayga wixii aan qorayay halkay ku jiraan war saxaabay ku yiraahdeen kitaab leeyne maalintaas uu tashado yiri cidlaad qodaysi wixii dama uu qayba de tuug dama muxuu ka qaaday kitaabkiisi laabtiisa ku qayba waxaan uga jeedaa marka كلمة تاني وحياة فرا واحد إن نصوص صارنا ذهبي يا بخاري يا مسلم يا شافعي يا أبو حنيفية مالك ويد كبوحان هذا علوم مادية هنا أينشتاين يا غير كيبا ويد كوتشيران لكن هاكو قنعنا وحبا قرن ميسيدي يا وحبا برن كريم ميسيدي يا مال عدلها بات شوكتا يا أدو أفريكان باتا يا كباتا يا عجمي باتا وحسوا شاكو طاقة ألا كسية إلهي وقام هدي عليه سبحانه وتعالى اسكن الدينا دا ديكسته رجع هلكم كوي اعتكاف سنة وحلا يدين كل إحدى عشان تجابني سامبا إلى قرآن كغبطان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته